anigu magacaygu waa Fartuun Xuseen Fartuun Bandubte anigoo dhalinyaradii magaaladan Minnesota ku kortay gobolka Minnesota waxaan u maleynayaa 20 sano ka hor baan imaaday 1999 hadda waxaan dhameeyay degreega masterka iyo degreega PhD-ga oo qaybta caafimaadka aan ku qaatay PhD oo public health waliba qaybta epidemiology-ga baaritaanka cudurrada iyo waxaan soo qaatay DNA-ga waa baaritaanka qofka jismigiisa meeshuu ka dhashay wixii dhalay iyo wixii ay wax wadaagaanba marka DNA taas baa la yiraahdaa marka dhowr nooc oo DNA baan sameynaa nooc ugu badan oo dadkeena hadda ay adeegsadaan waxa weeye DNA-da oo dhinaca dawladda markay ka soo codsato waliba immigration-ka oo kaleeto markay rabaan inay dadkooda sponsoraan ama dadkooda keenaan horta waxyaalaha nagu kalifay inaan xaruntan furno waxa kamid ahaa dadkeeni Soomaalida oo dhibaatooyin badan kala kulmay xurumaha adeegyadan oo kala sameeyaan xarun kale Soomaaliya oo DNA testing sameeyso magaalada ma ku taalo ama wadankaba kuma taalo inta ka ognahay marka dad cadaan ah marka wuxuu sameeyay dadkeenna luqadii baa dad badan dhibayso marka qofkii markuu yimaado oo loo sameeyo DNA-gi wuxuu u baahan yahay qof wixii garanayo oo cilmi u leh oo takhasus u leh oo u sharaxi karo testiga laga qaaday marka sidaas daraadeed aniga cilmi baan u leeyahay wixii baan sameynayaa qofka markuu u yimaado ilaa iyo markii testiga la sameeyo ilaa iyo jawaabtii waan ka qancin karaa waa u sharaxi karaa hooyadii ama aabihii qofkii jawaabta markay soo laabato waa qof fahmayo oo u baahnay inuu qof kale ii soo maro ama turjumaan ii soo wato nambarada hoose iyo wixii scientific ahaan anagoo ugu sharaxin si ay u fahmi karaan qofkii wuxuu ugu sharaxnaa especially dadkeena waayeelka kale waxa laga yaabaa inaysan jawaabtii hadii qoraal ku siisid hadii qofka cadaanka markuu u tago kaleeto wixii uma sharaxayo ma luqad fahmayo qoraal buu jawaabta ku siinaya wixina waa wax scientific oo nambaro laho percentage laho marka wixii ma fahmi karaan marka aniga qofkii waa la fadhiistaa waa u sharaxa waa u sheegaa wuxuu yahay dhowr siyaabood baan u baarnaa waalidka wuxuu noo keeni karaa cunugiisa in aan uga baarno waxyaalaha muqaadaraadka haday noqoto kuwa daawooyinka la qoro oo hadeeta muqaadaraadka lagu daray oo aad loo ilaaliyo oo dhibaato badan ka jirto oo waxyaalaha hada opioidka loogu yeero oo caruur badan waxta Soomaaliya u dhimatay intay isticmaaleen marka taas hadda waan baarnaa waalidkii u baahan in loo baaro kaleeto in ubadkiisa hadda ka hor hooyo Soomaaliyeed noo imaaday cunuga dhashay noo keentay maysan ogeen way ka shakisay laakiinse cunugii wuxuu isku dayay in uu been u sheego waa u sheegnay cunugii waxyaalo isticmaalayay noocyada isticmaalay waqtigu isticmaalay markuu xitiraahday meel hore aan geeyay jawaabtii cunuga ka qaatay wuxuu yiraahday maadaama cunuga 18 sano jir u ahaa wuxuu sameeyay hore wuxuu ugu sameeyay arintan wuxuu yiraahday markuu intuu gaalada ku laabtay wuxuu ku yiraahday ani 18 jir waa kana dhigayga jawaabteeda qof kale ma siin kartaan maadaama uu waalidka bixinayo testigi uu sameeyay jawaabta asaga siinayna waa ina marka hore saxiixda tiya uga saxiixnay hadhowta jawaabtu waa heshay cunuga hore test meel kale uga soo qaaday laakiin se hadhow markay meesha tagtay waxa la dhahay kuma siin karna jawaabta